dhalinyarada Soomaaliyeed naga raalli ahaada waayo wixii annaka jiilkii annaka naga horeeyay facin naga horeeyay waxa ay noo dhiibeen aan ku soo barbaarnay idin ma hayno maanta idin ma dhiibin naga raalli ahaada dhalinyaro jiilkii naga horeeyay dhibaato ay noo dhiibeen anaguna idima aynan siin dal aad ku faantaan markuu hadalka lahaa ma ahayn nin mucaarad qeylinaya ma ahayn qof baraha bulshada ku xanaaqaya wuxuu ahaa ninkii qoray warqadii Soomaaliya lagu heshiin lahaa Professor Maxamed Ismaan Jabaari magacani dadka qaar waxay u yaqaanaan gudoomiye baarlamaan qaarna waxay u yaqaanaan sharci-yaqaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay wuxuu ahaa maskaxdii ugu weynayd ee la doonayay inay qaran burburso warqad ku mideyso sanadkii 2012 markii Soomaaliya ka soo bixisay kumil gaarnimo dheer waxaa la keenay qabyo dastuur waxaa la yidhi halkan ayaa Soomaaliya cusub ka bilaabanaysa Jabaari wuxuu ka mid ahaa ragga ugu waaweyn ee warqadaas qoray ra'yigu wuxuu ahaa in sharci lagu heshiiyo in qawaa'ilka la xadido in awoodda la kala qeexo in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada sharci isku fahmaan in shacabku mar uun afti ku ansixin laakiin hal su'aal cidina isma weydiin dad aan weli is-aaminin ma lagu midan karaa warqad dad aan weli dhaawiciisa koy ka kaban ma lagu heshiisiin karaa warqad halkaas ayay dhibtu ka dhalatay sanadihii xigay wax walba waxay noqdeen muran qodob walba muran awood qaybsiga muran doorashada muran xiriirka dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada muran baarlamaankii la rabay inuu sharci dejiyo wuxuu noqday goob mooshin iyo isjiijiid ninkii nidaamkaas dhisayay wuxuu si tartiib ah u arkayay in warqaddii qarannimada ay isku beddelayso warqad lagu kala jiito markaas maalin uu codkiisu culus yahay indhihiisuna daal siyaasadeed ka muuqda wuxuu la hadlay jiil aan weli talada qaban wuxuu la hadlay dhalinyarada naga raali ahaada dhalinyaro jiilkii naga horeeyay dhib bay noo dhiibeen anaguna idima aan siinin dal xasilan waxaan idin dhiibnay dal weli dadkiisa isku ciil qabaa taasi ma ahayn hadal waxay ahayd qiraal waa qiraal nin sharci-yaqaan ah oo fahmay in sharciga uusan qalbi bedelin waa qiraal nin qarandoon ah oo arka in qarannimadii weli qab yahay waa qiraal jiil dhan oo dareemay inuu ku fashilmo inuu mustaqbal ammaan ah u dhiibo jiilka xiga Jabaari wuxuu ogaa in waxa ugu khatarta badan aysan ahayn qeybaha dastuurka ee ay tahay qeybaha kalsoonida maanta bal eeg 14 sano kadib ama 30 sano kadib dastuurkii weli waa muran cutubyo weli waa muran wax ka bedel walba waa muran dawladnimo weli waa muran sharciyad weli muran dhalinyaradii qaar badaha ayaa ku nafwaayeen qaar saxaraha qaarna gudaha dalka waxay la nool yihiin rajo sii yaraanaysa wax la soxo iska daa dhibkii wuu laba jibaarmay taasi waa sababta markaad maqasho Jabaari oo leh naga raali ahaada inaan loo maqal hadal nin da'ah yiri ee loo maqal cod jiil fashilmay jiil ku sii joogay laakiin xal dhammaystiran aan gaarsiin jiil heshiisyo galay laakiin heshiis qaran aan dhammaystirin jiil dhalinyarada mar walba ku yidhi beri ilaa berigii ay noqotay taariikh su'aashu maanta ma aha Jabaari muxuu qoray su'aashu waa yaasixi doon wixii uu qirtay mise anaka ku dheen ayaa jiilka naga dambeeyay maalin uu oran doona naga raali ahaada Allah subhanahu wa ta'ala midka wax abuuray way koonka asaga iska leh adinka asaa idin leh oo idin abuuray asaga idin arsaaqa roobka asaga keena wax walba asaa socodsiiya cid la wadaagtaana ma jirto qoladaani marka maxay hayaan ama ha noqdeen xeer beegti odayaala ama ha noqdeen tawaaqiid nidaam iyo qawaaniin samaysatay waa ducafo way waxay og yihiin male waxay tari karaan male waxay hayaan male jahli iyo waxa way hawadooda ay raacaan ayaa isugu tagay maxay meesha ku hayaan waa waxba waa adoommo yar yar laakiin maxay mushkiladu ka timid markay arkeen qolo dhoohan
ayay kibreen oo ay meel ayna lahayn isgeeyeen midaasna way midda quraanku dadka ku duuhayo leeyahay war qoladaana waxba idin ma hayaan adduunna waxba idin kugu ma hayaan aakhirana warkeeda badaaba